kulankan ay maanta wada qaateen maamulka gobolka Daadmareer iyo wafdiga ka socotay maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer ay ka soo qayb galeen madaxda laamaha dawladda ee gobolka kulankaasi oo looga gol lahaa amaba lagu naaqishayay sidii maxkamadda degmada Oodweyne looga dhigi lahaa heer gobol gudoomiyaha gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre oo ugu horeyntii furay kulankaasi isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankaasi ayaa waxa uu yiri waxayna la joogaa gudoomiyihii maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer oo u kuurgelaya habsami u socodka hawsha maxkamadaha wuxuuna ku saabsan yahay kulankeenu sidii gobolkan loo horumarin lahaa maxkamadiisana looga dhigi lahaa gobol degmo isla markaasna ilaha dakhliga kor loogu qaadi lahaa taas oo loogu gol leeyahay in heer gobol in lagu qaado dacwadaha gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer Xuseen Diiriyo oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in ujeedada socdaalkoodani ku qotomo sidii maxkamadda degmada Oodweyne looga dhigi lahaa maxkamad heer gobol ah heer degmo kuma filla dacwadaha gobolka Daadmareer waxaanu sameynaynaa halka kan bisha laga bilaabo wixii ka hadhay waxaan doonaynaa in laga diiwaan geliyo dacwooyinka heer gobol la ururiyo ka bacdi aan u soo diro garsoorkii inta garsoor gobol degmo Daadmareer la helayo inaanu anagu voluntary muxuu ahaay ugu soo diro bil walba hal mar markay dacwaduhu ururaan garsoorayaal ku qaada maxkamadda gobolka halka kan sidaas la eg wixii racfaan laga qaato in maxkamadda racfaanku ay halka kan ku qaado iyaduna racfaanka ku dhageysato xukunnadana ku soo saarto waxayna dhammaanba madaxdii halkaasi ka hadashay isaga daba mareen ahmiyadda ay leedahay in la helo maxkamad heer gobol ah isla markaana xukunta dacwadaha ka faca weyn maxkamadda degmada iyagoo mas'uuliyiintani xusay inay soo dhaweynayaan arrinkaasi dhinaca kale munaasabad ballaadhan oo lagu xusayay maalinta qaaxada adduunka oo sanad kasta la xuso 24 bisha Maarch ayaa maanta lagu qabtay gudaha cisbitaalka qaaxada ee magaalada Oodweyne taasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda iyo shaqaalaha caafimaadka waxayna madaxdii halkaasi ka hadashay dhammaantoodba ku dheeraadeen maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay iyagoo bulshadana kula dardaarmay inay xiriir joogto ah la yeeshaan xarunta qaaxada Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne